duruufaadka adag soo martay ee dagaal iyo qaxooti iyo adduunyo adag soo maray maantana wadankii si wanaagsan u dhisay oo wax lagu faanaa aan arkayo meel walba markaad marto gees ilaa gees wadanka waxaan aad ugu faanaa markaa 33 sanadood aan la soo noqonnay dawladnimadii naga luntay in maanta in badan ay hirgartay oo aynu sugano adduunyadu inay nala garato ay nala fahamto waxa aynu qabsanay aad baad ugu faanaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إلهو نقدك كوها ننصن دادكنا هانونية دمان دادك الصومالية دي برنامج كبفاعو كدقي سنة راديو بوراني كان داوانا يسومالي كريان تي في برنامج كبفاعو ما انتو وحن كسو قادنينا waxaa saxaafadda la hadlay oo mahadnaq u jeediyey gudoomiyaha musharaxa xisbiga Hillaac Professor Axmed Ismaaciil Samatar dadka barnaamijka dhageysanaya waxa aynu tusaale aad u qurux badan ugu soo qaadanaynaa waxa uu sheegay nin aqoon-yahan ah oo Dr. Joobo la yiraahdo waxa uu yiri haddii buu yiri aqoontaadu maalinba meesha aad ka aragto qabiilkaaga ama aad ka aragto dhanka ay uga jeedo siyaasadaadu ama ururkaaga diimeed ay maslaxadeedu ugu jirto ka weydo oo aad arki weydo cadaaladda iyo runta aqoontaadu waa waxba kama jiraan. Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxa uu wax badan u ololeeyay Soomaaliya midnimada Muqdisho ayuu tagay su'aal baa la weydiiyay su'aasha la weydiiyana waxay ahayd tolka maxaad u qabatay adigu sayaata waxaan umada la wadaagaya sheegay la yiraahdo runta dadku inuu ka cadhoodo ma runtu wuxuu bay hagaajisaa موسى سعودي يلحو بين مشيغين sababtu waxay ahayd inuu weydiiyay maxaa dadkaaga gashatay in badanna Soomaalidu hore waxay u tirinin waxay sunba wax loogu daraa dadku waxay raali galiyaan dadka ee Ilaahay ma raali galiyaan waxa uu leeyahay nin aqoon-yahana oo buuq qoray ayaa wuxuu ciwaan uga dhigay cajibtu waxa la yaabay buu yiri nin dadka ka xishoonaya وأن إلهي كحشونين وحن لي أبي بينين إلهي كرنا يونا داعين وحن لي أبي بيري ندتك ويقارنا يوردان الإنسان قيامه هنا إنه فوق يهوى هايستا إن بدن ومد الصوماليين وإنه دقيني سنة بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر واحد وقيدين وضيضا بيش محل عسى سوى البوا ولا هالدين واردو رشد قلبا ليلو ديدي dad kale iyo barnaamijka hadda maxkamadda loogu xakumay ayaa loogu yeeray waxa jirta maahmaah Soomaaliyeed oo tiraahdo habar dhali weyday aleelo ku waalatay habar dhali weyday aleelo ku waalatay waxaan umada la wadaagayaa maxkamaddii uu sheegay in ururkiisa Hillaac uu xakuntay inay ahayd maxkamad order la bixiyay way order baa la bixiyay waxaana la ogaa oo qof walba ogaa in Muuse markii uu arkay xaalka Soomaaliland ku jirtay doorashada saddex qof u yeedhay waa Professor Axmed Ismaaciil Samatar waa Buur Madow iyo Cabdilaahi Dirawal cid walba way ogtahay Axmed Ismaaciil Samatar waxay ahayd oo mudan tolkii markuu la hadlayay inuu yiraahdo waan idin maqlayaa laakiin dad dana gaar ah wata oo maanta ururka Hillaac ka mid yahay xisbiga kulmiya in isaga oo shalay umada oo dhan wada daawanaysay oo uu lahaa Somaliland saddex xisbiyo reera ayaa cararaya dadkii kalena waa la afduubay oo waa la diiday oo sharci kama shaqeeyo maanta inuu soo istaaga bulshada oo uu amaano isagoo dulmi loogu eexday oo dulmi lagu soo saaray oo la og yahay Muuse rag dhalinyara oo siyaasadda u furfurcoon oo raba isbedel inay sameeyaan in uu isaga adeegsanayo
ayaa waxaan ummadda la wadaagayaa xisbiga hilaac xukunka loo xakumay xukun cadaalad maaha. xisbiga hilaac xukunka loo xakumay waxaa laga qaatay inay raacfaan qaataan oo ay maxkamadda sare tagaan ayaa xisbigii guddigii kale ee iyaguna ahaa doorteen. laakiin ummadda waxaan la wadaagayaa shayga la yidhaha dulmigu waa laba kelmadood oo isa saaran, waa xadgudub iyo gardarro. waxaanan ummadda la wadaagayaa professor axmed ismaaciil samatar, nin aqoon-yahanoo soomaali jeceshahay buu ahaa. maanta ninkii aqoon-yahanka ahaa inuu beel ku soo noqdo oo uu weliba isagoo shalay dhaleecaynayey ood arkaysaan istisaaha uu ku samaynaya maanta inuu dib u ammaano. walaalayaal, ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kaburan maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun. cadho ilaahay baa weynaatay dadka wax sameeya intaad tidhaahdaan aydaan idinku samaynayn. isagoo shalay dhaleecaynaya, isagoo shalay wax ka sheegaya, maantana afkuu ku dhaleecaynaya, ku ammaanaya. waxay ku tusaysaa somalilan sida uu muuse biixi dadkii aqoon-yahanada ahaa, siyaasiyiintii beesha gadabuursi uga dhigtay bridge, uuna riday political slave oo uu kaga ciyaaro caqliga oo kolba siduu doono ka yeelo. waxaynu daawan karna maaha. waxa runtii wax laga xumaado ah afkiisii uu shalay ku hadlayay inuu ku adkaysto in ay ahayd cadaalad darra inay somalilan ka jirto. laakiin soomaalidu waa sida geeljiraha wey. ninkii shalay ad lahaydeen ee lahaa dadkan ictiraaf bay doonayaan, hargeysa 30 sannadood uu ka bilaabo sidaad u qurxiseen, sidaad u wanaajiseen uu ka bilaabo ninkii wax la ogyahay ku hadlayay. waa nasiib darrooyinka maanta beesha gadabuursi haysta, gaar ahaan beesha maxar case. waxaana la wadaagayaa dadka aqoontu. nebigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu bilnabi. dadka ayaa u khayr badan ninka qur-aanka barta ee dadkana bara. aqoontu waa information. aqoontu ninka u dhashay damiinnimada kuma kordhiso inuu ka dhigo leadership. waxaanan ummadda la wadaagayaa liidarku wuxuu leeyahay kaaratooyin gaara oo islaamku ina amray. 2 waxyaalood baa diinta islaamku ina amraysaa. midda ugu horreysa waa maxay? waa macrifo ah, weliba maaha political science, maaha waa siyaasi. macrifada ugu horreysa tawxiidka ilaahay iyo khashyada ilaahay wey. ta labaadna waa maxay? waa ammaana. professor axmed ismaaciil samatar ururkiisu wuxuu u ololeeyaa dimuqraadiyad. dimuqraadiyaddu waa maxay? xukunka shacabka ayaa iska leh. waydin aragteen hadalladiisa, waydin naqaanaa waxa uu aaminsan yahay. laakiin waxaan halkan shacabka uga sheegayaa in maanta xukunkaa uu shalay isagu uu lahaa meesha cadaaladii ma jirto, maanta inuu shacabka la soo hor istaago. waan ugu mahadnaqayaa sida fiican ee wax loo qabsaday. 30 sannadood hore marka aad gaadheen, 2 hadal oo iskala maaha. aqoontuna sideedaba ma keento leadershipka. waxaanan ummadda la wadaagayaa kelmadda dulmi la yidhaahna waan macneeyey. waa xadgudub iyo gardarro. ururka hilaac xukunka la xakumay waa dulmi iska cad. horena loo ogaa muuse inuu ka dambeeyo. xisbiga hilaacna dadka aan la hadlaya waxaan u caddaynayaa inuu ka mid yahay ururka kulmiye. aydan soo bixi doonto wuxuu doonta iminka ha yidhaahdo, siduu doona ha u jawaabo, laakiin runtuba horteennay iman doontaa. laakiin waxaan leeyahay dadku ilaaha abuuray ha adeecaan, ilaaha abuuray ha raacaan, diintan islaamka ha raacaan. xukunka marka dadka la xukumayana ilaahay wuxuu leeyahay cadaalad in dadka loo xukumo. cid walba way ogeyd muuse ninkaa inuu nimankaa uga eexanayo. odayaashii iyo gartii galayna su'aalihii la weydiiyey bay ku jirtay. maxaad noo diiday ood noogu soo noqotay? waadigiina diiday, dad baa ii yeedhay. waxaan ummadda la wadaagayaa runtu wuxuun bay hagaajisaa. laakiin waxay noo soo bixi doonaa xisbiga hilaac inuu ka mid yahay kulmiyo, dulmina loogu xukumay, iyaguna racfaan qaateen. ummaddana aan u sheegayo somalilan inay gashay political crisis. ood arkayseen jabhaddii lagu dhawaaqay oo ah beesha uu ka soo jeedo maxamed abiib. ayna wanaagsanaan lahayd
beesha gadabursi maanta inay midaysan yihiin oo waxay ku midaysan yihiin wax ku wada qabsanayaan halka barnaamijka aad ka daawanaysaan kana dhegaysanaysaan waa radio borame somali current tv wali wata fatiraha xaamud suldaan cali cilmi suldaan